kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka telefishinka Somali News warka waxa uu idinkaga imaanaya xarunta telefishinka oo ku leeyahay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta dhagax dhigay xarun cusub oo ay yeelan doonto socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya. Baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabelle ayaa ansixiyay dhawaan wasiiradii madaxweynaha maamulkaasi uu ku dhawaaqay. golaha wakiilada ee Somaliland ayaa maanta waxaa hareeyay buuq ka dhashay sharciga la ansixinayo ee ku aadan dhanka bankiyada iyo weliba ribada. hogaamiyihii hore ee ururkii waqtigiisu dhamaaday Xisbul Islaam Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa waraysi uu bixiyay waxa uu ku xaqiijiyay in haba yaraatee uusan marnaba ka mid noqon xarakada Al-Shabaab. waddanka Yemen duqeymo ka dhacay waxa dhibaato ay ka soo gaartay goob suuq ah oo dad rayid ah xilligaasi ay ka tukaamaysanayeen. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad warka goordhow ku daawan doontaan. warkana waxaa idin aqrinaya anigu Axmed Cabdullaahi Koofi.